تلاقي تصالح تمامي يتهبطات تبتي هويدي أي وصو تعبى شيء يعني قول مثال بلاحي سو إباي تصالحيني إن أنتاغيرو غاري إيو قربوتكت وبرنامج كهضليا أرمها قسكا وبرنامج آد بهل دولتان وبرنامج أي إنتا تهيسو الشهر الشيخ محمود علي يو أدقو إنتا لنك تاغن كاميرا إيو فرسمدا إيو فكرتا غاري إيو قربوتكت Wano iyo talo, wanagi yo samo. Wano iyo talo, wanagi yo samo. Kala wa kadai anu waine. Wano iyo talo, wanagi yo samo. Wano iyo talo, wanagi yo samo. Kala wa kadai anu waine. بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو ونكسن داوديال ميل كستو aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii gaari iyo gurboodkeed oo aan rabno in aanu sawir guud ka bixino bal barnaamijka sida uu u dhici doono iyo waxyaabaha uu ka koobnaan doono daawadayaal sida aad u jeedaan waxa ila fadhiyo Cabdishakuur KBB oo isagu ah cameramanka editorka iyo ninka iska leh fikradda barnaamijka gaari iyo gurboodkeed oo isaguna igala qayb qaadan doono aad ayaan ugu faraxsanahay Cabdishakuur inuu igala qayb qaato barnaamijka maadaama barnaamijka uu noqon doono barnaamij talantaali ah oo ay isla wadaan rag iyo dumar Cabdishakuur bal marka hore waxa ku soo dhawaataa barnaamijka gaari iyo gurboodkeed barnaamijkan markii aan rabno inaan bal sawir guud ka bixino barnaamijkan qaab noocay ah ayaad bulshada sawir guud uga bixin lahayd barnaamijkan horta gaari iyo gurboodkeed horta gaari waxaa la yiraahdaa gabadha ama haweeneyda la qabo ayaa gaari la yiraahdaa gurboodna waxaa la yiraahdaa carruurta ay dhashay gurbood ayaa la yiraahdaa horta taas ha ogaado badi dadka mataqaana su'aalaha waxyaabay inaga weydiinayaan waxaa ka mid ah in ay su'aasha noocaas oo kala ah macnaha ay ku wareerayaan gurbood maxaa la yiraahdaa gaari maxaa la yiraahdaa iyo waxa laga yaabaa dadka qaar inaysan aqoonin aqoonin horta taas horta inaan u fasirno waaye gurbood iyo gaari labadaas horta uga tagnay barnaamijka sawir guud hadaan ka bixiyo saarooy barnaamijkan message badan sa ogtahay message aan soo gaaray dad ayaa comment ka bixiyay yani dad badan oo caadi ahaan i weydiiyay telefoon ahaan i weydiiyay dad adiga kula soo hadlay oo adduunka daafiisa kala jooga ayaa jiray marka haddaan sawir guud ka bixiyo barnaamijkan horta wuxuu taabanayaa waa hooyo iyo carruurteed يعني oo aan la joogin odaygi sabab kasta uu ku maqan yahay haba ahaato wadamo kala duwan maxaa kugu la yaab ka badnaa oo aad aragtay ama aad bulshada iyo anigaba noo sheegi kartaa ku saabsan hooyo kaligeed carruur iyada korinaysa ama dhib ha ku koriso ama siyaabo kala duwan ha ahaato wixii kugu yaab ka badnaa oo ku saabsan wadamada qurbaha aad ku aragtay hooyo iyo carruurteed ah runtii horta beelaha mataqaana hooyo iyo carruurteed aan macnaha horta aan u arkay dhibaatooyinka hooyooyin kaligood waajaha meesha ugu darneed ugu xumeed horta waxay ahayd waddanka Yemen waa waddan wuxuu ahaa aad dhaqaale fara badan aan lahayn haddana qaxooti fara badan oo Soomaali ay ku nool yihiin waxaan la soo kulmay xerooyinka qaxootiga Soomaalida waxaan la soo kulmay hooyooyin kaligood carruurtooda korsanaya مثلا hooyadii iyadoo kaligeed Soomaaliya ka soo taariibtay
waxay soo gashay xerooyinka qaxootiga alkharas ha noqoto ama basaatiin ha noqoto meelaha mataqaana qaxootiga u badan yihiin ama mataqaana sanca ha noqoto waxaan arkay wax badan ayaa waxaan soo arkay hooyo keligeed nool aan soo arkay dhibaatooyinka ugu faraha badanna waxay ka yimaadaan odayga iska dhaqaajiyey gabadhii meesha ay ku rafaadayso waxaa arkaysaa gabadhii inay mataqan quutuliyada si u raadso shaqo maalan waddan islaamiyada la joogaa ama mataqan waddan faqri ah shaqo intaysan haynin carruurtii ma yaqaanaan moogta carruurta hooyasho ma shaqayso iyo waxba lama haysto ma yaqaanaan marka waxay ku khasbanaanaysaa marka inay meelaha inta soo wareegto ay soo tuugsato ilaa qorbay joogtaa waalid ma joogo ehel ma joogo qaraabo ma joogto odayga waa ka taariibay xaggee aadaysaa meelay aadaysa ma leh Soomaaliya ayaa ka soo carareen waxay raadinayeen shaqo iyo nolol wanaagsan kadibna waxay ku dhaceen kufsi mid ka mid ah waxay leedahay waxay wadaa 3 carruur ah meel ay wax uga keentana ma haysato waxay raadsanaysay shaqo wanaagsan $150 ayaan bixiyey markii ay xeebta timaadayna lacag kalaa la weydiiyey waxba uma harin waxaa loo wada guri 3 nin ilaa 4 nin ayaa maalin walba kudsanaysay muddo 15 beri ah midda kale waa 18 jir kama duwanida qisadeeda midtaas waxay Djibouti ka soo baxday waxay u socotay Sacuudiga ma aysan gaarin dhibna kama aysan badbaadin halkan waxaa ku imid doon waxay ii wadeen guri si aan shaqaalo uga noqdo bil ayay joogtay kadibna markay dacwootayna waxay u bedeleen nin kadibna maalin walbaa la kufsan jiray wax walbana sidaas ayay ku dhammaadeen waa tahay cabdishakuur aad ayaa u mahadsan tahay runtii barnaamijkan waxaan dareemayaa barnaamij loo baahnaa in uu yahay dadweynahana waxaan rabaa inaan u sheego barnaamijkan ciddii rabta inay nagala qayb qaadato inaan kusoo dhaweynayno horena waa u sheegnay way mahadsan yihiin dadka iyagu nala soo xiriiray rag iyo dumarba leh oo runtii fikrado aad u wanaagsan soo gudbiyey bilowga barnaamijkana waan ku guda jirnaa barnaamijkana waxaad kala socotaan magaalada Fibo oo gobolka Yulan ka tirsan ee dalka Denmark dabcan waan booqan doonaa magaalooyinka kale ee wadanka ka tirsan iyo sida dumarka ubadka kaligood Korea ay ugu nool yihiin iyo sidii aan uga qaadan lahayn fikrado iyo waxyaabaha ay la kulmeen sidii aan ma aragtay bulshada ula wadaagi lahayn taasoo badi keenta macnaha in reerkii ay mataqaanaa si fudud u kala tagaan sababaha waliba khaasatan markii qurbaha la joogo kale Soomaaliya marka la joogo kale ninka naftirkiisa culays ayuu isaga naftiisa qabtaa oo culayskaas oo ah inuu soo shaqeeyo oo reerkii mataqaanaa uu soo shaqeeyo oo hooyadana guriga ay joogto laakiin qurbaha markii la yimaado markii runta laga hadlo xaqiiqo marka laga hadlo taas way isbedeshay wadankii mataqaanaa mesela Yurub markii la joogo kale hooyadii iyo mataqaanaa aabihii waxaa biilkooda bixiya dawladda ama mataqaanaa ceer bay qaataa si u loo badan yahay inta shaqaysto oo shaqaysta iska tii markii ceertii ay qaataan waxaad moodaa marka odaygii sidii Soomaaliya kale inuu u dhaqmaayo badi inuu mataqaanaa mesela u arkaayo macnaha nin isaga uu yahay howlaha guriga iyo mataqaanaa ilmihii ka warqabkooda inuu u daynayo hooyadii mesela ama ka guuraayo ama se mataqaanaa khilaaf joogto ah meeshaas ku dhalanayo oo hooyadii ay daara dhacayso ku fayso mas'uuliyadda Soomaaliya taalo oo hooyada ilmaheeda ku soo waajihaysa iyo mas'uuliyadda markii qurbaha la joogo hooyada soo waajihaysa way kala weyn aad ay u kala culus yihiin مثلا هذا Soomaaliya kale cunuga intuu yar yahay 2 sano 3 sano jiro hooyada way la daala dhacaysaa waa gacan dhabtay ku haysaa dhabta maalintu ka kaco cunuga dugsiyo aadaya macnaha obartii cunugaas waa inay u qubayso oo cunto siisa bas laakiin marka la joogo waxa waaye cunuga ciyaartiisii hooyada ku shaqo leh waxbarashadiisa hooyada ku shaqo leh iskool geyntiisa hooyada ku shaqo kale subaxii kicintiisa hooyada shaqo ku leh cunto siintiisa hooyada shaqo ku leh isbitaalkiisa hooyada shaqo ku leh wax walba kulli shay wuxuu ku tiirsanayaan waalidku ku tiirsanayaan tiya marka
waxay keenaysaa hooyadii inay mataqaana aad iyo aad ugu dhibaatooto meesha haddana saas tahay su'aal iyo mataqaana cunug la dhalay oo mataqaana lagu controlaya waa cabsi ay qabto darteed ayaa mataqaana hooyadii waxa cunug wax yar soo gaaray oo garaafa ah inay hooyadii mataqaana ay naxdin beerka u qulfataa laga yaabaa laakiin Soomaaliya dil joogo cunug la soo yara dakhro waa meelaha ka qaylaysa xoogaa la cunugeeda iska daaweynaysan waa cid la hadlaysa ma lahan laakiin meeshaan markii la joogo sheekadu way ka duwan tahay taas mas'uuliyaduna tii waa ka weyn tahay marka haddaan raggi nahay xaqiiqo markaan runta ka hadlo waxaan dareemayaa xaggaas ani ahaantayda aan dareemayaa anigu kulli rag oo dhan ma wada saarayo macnaha dhibaatooyinka laakiin badi sida loo badan yahay sidii hore inaan u dhaqanaan rabnaa sidii hore inaan u dhaqanaan meesha ma soconayso waxa waaye meeshaan waxa waaye kulli hooyo in la noqdo waa ninka iyo naagtaba inay hooyo wada noqdaan waa laano booski aabanimada meesha ma yaalo nin dhifa ayaa mataqaanaa booski aabanimada runta aad buuxiya oo مثلا intuu soo shaqaysto shirin aan ka qaadanin dawladda oo mataqaanaa caruurtiisa iyo wax walba biisha kaasna dawladda way u daysaa caruurtiisa iyo naagtiisa xataa naagta wax looma diro laakiin naag wax loo diraayo mataqaanaa waxa soo qaba la leeyahay ilmihi lagu kontroolayo dhibaatada iyo mas'uuliyadda iyo wax walba hadaa adiga ugu sii darto mataqaanaa in aad adana mataqaanaa aad xaq nafsiyan aad u sii ciisho waxa waaye waa dhib kale meesha taagan waa marka runta marka laga hadlo barnaamijka taasu taabanaya waana maqlaysaan Yurubta iyo waxa dumar cabaadayo ooyayo oo Facebookyada iyo meelaha ka qaylinaayo 4 saac bood oo qaylinaayo waa dumar dadkuna ay ka faa'iideystaan ama jiilka soo koraya ay ku arkaan ama ay wax ka qaataan Cabdishakuurow waa sida aad sheegtay dad badan baa jiro oo ma aragtay mararka qaarkood laga yaabo inay u fikirayaan barnaamijkan wuxuu ma aragtay target ku yahay ama lagu tilmaameedsanaya raggi runtii aad ayaan ugu faraxsanahay in raggaas adigu maanta aad kamid tahay ama aad u sheegaysid runtii wixii jiro maanta aniga hadii aan ka hadlo waxa laga yaabaa in la dhaho ama adiga naftirkaaga laga yaabaa in aad tiraahid dumarka u heelinaysa laakiin maanta waxaan indhaha laga daboolan karin waaye waxa jiro iyo dhibaatada jirto dumarkoo dhanna ma wada fiicna ragoo dhanna ma wada fiicna runtii waxaan rabnaa waxa jiro xaqiiqda ah inaanu ka hadalno isla markaana aan wax ku qaadano YouTube iyo Facebook waa Som Denmark TV-ga Som Denmark bashana waa ku qoraynaa waxa kale oo jirta oo hadda aan mataqaanaa aan idin sheegaya waxaan xoog saari doonaa xagga YouTube-ka ayaa mataqaanaa ka baaxad weyn mesela markay barnaamijyo la doobayo saacado ah ama se mataqaanaa nus saac wax ka badan oo waxa waaye waxa loo baahan yahay YouTube-ka inaan galno marka YouTube-kana waa soo share gareyn doonaa page-ka ku soo share gareyn doonaa YouTube-ka marka waxa sameeynaysan si aad noo taageertaan taageero ay idin ka helno marka aad YouTube-ka gasho waxa taabanaysaa subscribe wax la yiraahdo ama se wax la yiraahdo af Arabi qofka duu matala af Arabi ku leeyahay ishtiraak ayaa mataqaanaa aad sameeynaysan subscribe-kaas haddii aad nagu caawisaan oo subscribe fiican aan helno waxaad noo badanaya tayada barnaamijkeena iyo mataqaanaa hiilinta mujtamaca iyo mataqaanaa inaan gaarsiino dad fara badan barnaamijkeena sidoo kale barnaamijka waxaad kala socon doontaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo dunida daafihiisa qof walbana uu ka daawan karo wasu'aale labadeena reerkayow